السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي dhaqaaliga meel walba caalamka kaga sugan tihiin ku soo dhawaada channelkayga Emirates. waxaa si sharaf leh laga codsanaya haddii aad channelka Emirates ku cusub tahay inaad subscribe saarto, gambaleelkana furato, asxaabtaadana aad u gudbiso si ay ula socdaan barnaamijyada aan halkan ku soo gudbino. waxaanu halkan soo galnaa asbuuciiba hal mar ama laba mar haddii ay ugu badato, inagoo aanan ku mashquulin maalin walba YouTube-ka kaliya. waxaan usoo galnaa in aan asxaabteena ama walaalaheena Soomaaliyeed aan usoo gudbino wax ayaga anfacaya oo ay ka faa'iidi karaan. balse maanta waxaan rabaa in aan ka hadlo barnaamij yar oo ku saabsan sida qofka uu isku horumarin karo, dadkiisana uu u horumarin karo. haddii aan Soomaali nahay, adduunka intiisa kale aad baan uga duwannahay markii loo fiiriyo dhanka iscaawinaada iyo dhanka wax istaridda. buuggan waa Swedish, wax yar ayaan ka akhriyay, inkastoo Swedishka aanan aad u aqoon, balse waxaan isticmaalaa translate oo ereyada waa fasirtaa. halkaas ayaana ku qortaa haddii ay aan fahmi waayo markaan akhrinayo, si aan meeshaas ugu fasiraad ahaan uga qorto. marka buuggan faa'iido ayuu leeyahay aad u weyn, laakiin waa dadka waxaa ka faa'iidi kara economica aad u bartay ee gacanta adag, macnaha lacag samayn kara. laakiin si dadka anoo kale ah iyo dadka kale ma ka samayn karaan. markayaan hadal idinkugu daalin aan barnaamijka u guda galo, Soomaali baynu nahay, lacag baynu dirnaa bil walbo. waxaa waaye waa shaqaynaa, wixii aan shaqaynana waan dirnaa. balse waxaa loo baahan yahay sidee looga hortagi karaa mar walba lacagtaan aad dirtid, sidee reerkaagana ku xakameyn kartaa, aadna isku xakameyn kartaa, ayagoona ay wax u qabsan karaan. soo bil walba lacag baad dirtaa. lacagta aad dirtid waxay gashaa calool, wayna baxdaa, mid kalaad dirtaa sidoo kale. soo lacagtii ma lahan raasumaal ama wax meel laga dhigtay ama seef waxa aad dhigatay ma jiraan. aniga waa shaqeeya, lacagtina waa wada diraa. sidee marka aan uga hortegi karaa dhaqaalahaas mar walba aniga aan waalidka u diro, sideen ugu bedeli karaa dhaqaalo ayaga ay samayn karaan? inay fahantaan aan jeclahay. haddii aad tahay nin shaqaysta oo ku sugan qurbaha ama ku sugan Soomaaliya, qofka walaalkaa ah ama familka reerku wada degan yahay, waxaa la samayn kartaa adigoo qofka maalgeliya. bil walba $100 aan kuu soo diraa wax kuuma tartee, adeerow $2,000 qabso oo isku maalgeli, wax samayso. wax istar, adiga dhaqaalo samee. $2,000 oo wax bilowgeeda. Soomaali haddii aynu nahayne, waxaan jecelnahay nolosha inaan ka bilaabno high level. qofka asigoona wax soo baran, asigoona xirfad lahayn, asigoona wax kala lahayn, ayuu wuxuu rabaa the highest level inuu ka bilaabo howlihiisa. haddii aad dalkii wax ku ahayd oo aad meel kasoo shaqayn jirtay, meeshaan haddaad timaadid, xaqiiqda runta ah waad arkaysaa, xaqiiqda runta ahna waad la kulmaysaa. nin waxaa arkaysaa dowlad la shaqayn jiray, shaatigiisa u cadda, markuu inta yimaadayna howlo oo xagga markuu joogo uusan qaban karin uu ka faadan jiro, maanta in unta ay sharaf agtiisu ka tahay. maxaa keenay? dal aan dalkaaga ahayn waa dareen ku joog. marka dal aadan lahayn inaan saan u fadhino aan dhulxaaqow iyo adduunyo aan kugu jirno, waa laga fiican yahay. waalidkiina bil walba inaad lacag u dirtid oo lacagtiina la waayo, waa xanuunsan kartaa berito, waa jiran kartaa. haddaa jiratid waalidkii lacag uu bil walba kaaga bartay, intee ugu keenaysaa?
intay ka helayaan maanta ilaahay xanuun kuuma kasee oo xanuun kuu yimaado biilkii aad u tari jirto intay ka keenayaan taasa su-aal u baahan marka waxaa loo baahan yahay qofka bil walba $100 loo diraayo haddii aad awoodo in aad $3,000 $4,000 hal mar jug aad ku siisid haye ani lacag yaa layga sugin biil yaa layga sugin lacagtaasaa idin soo diray dukaan ku furta ama ganacsi ku samaysta wax ku samaysta yaa layla soo hadlay markuu sanadka dhammaado soo markaas waxaad ku zaa'idin karto reerkii haye maxaa isbedelay maxaa soo kordhay yaa aad lacagtii aad sanadkii hore siisay haddii incomekii uu xoogaa dhaqaalihii xaggoodii kasi xoogaa ka yaraaday maadaama familigu uu hadda dukaanka ku cusub yahay ama ay ganacsiga ay galeen uu ku cusub yahay laga yaabo in uu ku adkaado oo dhaqaale dari ay timaado sanadkii marka uu dhammaado hal mar haddana kab فهمت واتكبيسا ganacsiga waa isfurfuraa qofkii wax tarbuu yeelanayaa markuu sanad ama 2 sano joogo la xisaabtamaysaa hay maxaa sanadkan idin soo kordhay dukaanka xalkiisu waa sidee ganacsigiina halkuu maraaya intay wax marayaan haye sidee wax u jiraan dhaqaale fiican ma yeelataan ha dhaqaale fiican aan soo koray hay ma sha Allah dad dhaqaalahaas idin soo koray hebel ganacsiga la loo sameeyo waxa istaro lacag dad dukaankii lacag ka dhigteen asaga dukaanka la loogu furo oo wax kale loo sameeyo soo ninkii kala dukaan loo furay ama ganacsi kale loo furay incomekiisa adiga wax ugu dari kartaa ugu daray adigana safe baa meel ku yeelanaysaa waalidkaagana safe baa meel ku yeelanaya aniga waxaan ku fikirayaa waxaas waay aniga aan nafsad ahaantayda hadda aan idin leeyahay sameeyo anigu ma aanan sameeyo laakiin waan ku fikirayaa in aan sameeyo culaysaha saaran markay iga kala degaan waxyaalahaas aan jeclahay inaan ku dhaqaaqo inkastoo qayb ka mid aan ku dhaqaaqo laakiin waxaan jeclahay xoogga badankeeda inaan ku dhaqaaqo aan dhaho haye ismaalgeliya idinka lacag waa taasa samaysta sanadka markuu dhammaado la xisaabtan iyo xoogaa arrimaya soo cuslaadaan markaas caawi soo hadalkaas hadal xun maaha hadal aada wanaagsan waaye inaad bil walba shaqayso oo hard worker aan noqotid laakiin lacagtaada aad dirtid oo bil walba saad lagaaga baahdo berito haddaad dhimatid macnaha meesha ka fikiraya fiiriya in case beri waa dhimatay way noolaanayaan aan iska leeyahay way noolaanayaan waa la ogyahay laakiin waxaa loo baahan yahay marka aad adigu wax qabsanaysay ya in ayagana dhinacooda wax ka qabtaan hand to hand working together we can do more markii wadajir lagu shaqeeyo wax badan ayaa la qaban karaa working together we can do more gacmo wadajir bay wax ku qabtaan laakiin if you just waiting for me and you stay there and you are doing nothing so because hadday marka ay lugtaan dhacdo so adiga ana lugtaan wax ka sugi jir lugtaan way dhacday yaa wax ka sugay marka think waxaa loo baahan yahay in la fakaro sida aan ku sugannahay wax ka bedelo haddii aad channelka imraas ku cusub tahay ay tahay markii ugu horeysa aad aragto waxaa laga codsanayaa inaad subscribe saarto asxaabtaada gulubso like comment like waa dhiirigelin commentiguna haddii aad barnaamijyada ka heshay soo comment yar dhac ku soo qor hoosta xasdin walaalka Soomaaliyeed ahay ya marka muxuu dhihi jirkii Mareykanka jooga dhac ya dhac ku sii baash hadaayada ciyaarta ya wanaga jiiftaani ya so if you are mucaarad oo محافظ وحاول صار باشا وقبل دعم سبسكرايبتا فيديو هكذا محلها برنامج كان برنامج حاجة انت كل مدورنا سيدا ايو نبت قليو صومالي وين وحسترى حقب صدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته love you guys